madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo wafdu hogaaminayo ayaa saaka aroortii hore soo gaaray xarunta dalka Itoobiya sababa isla gilikii dambe ee maantana waxaa si rasmi ah u qaabilay ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya Ato Haile Mariam Desalegn kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo ay ku helinayeen guud ahaan wasiiradii ku helinayay wafdiga madaxweynaha Soomaaliland iyo dhinaca Itoobiya uu ku helinayay agaasimaha guud ee arrimaha Afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa laga xajooday kulankaasi oo qaatay muddo saacad iyo badh arrimo badan sida uu noo sheegay madaxweynaha Soomaaliland oo warsaxaafadeed ku qabtay xarunta qasriga madaxtooyada dhexdeeda kadib markii uu ka soo baxay shirkaasi madaxweyne Siiraanyo wuxuu aad ugu mahadceliyay dawladda Itoobiya ee jaarka la Soomaaliland iyo hogaamiyaheeda ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn waxa uu sheegay in qaabilaadaasi ahayd qaabilaad walaaltinimo badan ku dheehan tahay waxaana ka wada hadalnay arrimo badan oo amniga isu socodka labada dhinac dhaqaalaha iyo waliba kor u qaadista kobaca aqoonta ee Soomaaliland ay ka kaalmayso dawladda Itoobiya ay xudun u hayday yiri madaxweyne Siiraanyo isagoo arrimahaas ka jawaabayna waxa uu yiri Somaliland and Ethiopia have always had a very good relationship and this relationship will continue. The relationship has always been very nice and very cooperative and this is not the first time I have come to see the Prime Minister and we are very happy about it and we have come to strengthen that relationship and to continue that cooperation. The issues we discussed with the Prime Minister concerned security issues and concerned, cooperation in different areas and also in our relationship in the economic field. geesta kale waxay Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda u hadlay oo ka jawaabay kulanka dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland Ato Wandamo oo agaasimaha guud ee arrimaha Afrika u qaabilsan dawladda Itoobiya Ato Wandamo waxa uu sheegay inuu ahaa kulan aad u taariikhi ah oo taabanayay dhinacyo badan qaatayna waqti taariikhi ah oo badan waxa uu sheegay inay ugu muhiimsanayeen arrimaha socodka labada dawladood ee Itoobiya iyo Soomaaliland arrimaha nabadgelyada ganacsiga dhaqan dhaqaalaha iyo waliba wada xaajood lagaga wada hadlay kulan dhawaan dawladda Itoobiya ay wafdi ugu dirtay Soomaaliland oo technical level aha oo sheegay in arrimaha wasaain uu kobcay isla maanta wixii ka dambeeya heer wasiirada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland ay dhawaan kaga wada xaajoon doonaan si aan baqaadista kulankaasi Soomaaliland iyo Itoobiya ee arrimaha ganacsiga u badnaa ee laga wada hadlay Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa dhawaan waxa uu sheegay sidoo kale inuu aad ugu faraxsan yahay ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn qaabilada waqtigan ku qaabilay wafdi ka socda Soomaaliland isagoo tii markii ugu horeysay taariikhda isagoo ra'iisul wasaaraha uu qaabilo madaxweynaha Soomaaliland. The discussion was very wide and encompasses all facets of our relationship. The two leaders have underlined the historic relationship between the two countries. And they have also appraised the recent meetings at the experts level and which is also expected to go to the level of ministerial meeting and they have discussed on all potentials of cooperation. kulankaasi dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Haile Mariam Desalegn oo ah Prime Ministerka dalka Itoobiya ayaa guud ahaan waxa xog warankaasi ka siiyeen saxaafadii ku sugnayd xarunta qasriga madaxtooyada ee dalka Itoobiya oo ay tahay markii ugu horeysay ee madaxweyne Siiraanyo uu kulan rasmi ah kula qaato Prime Ministerka cusub ee dalka Itoobiya iyadoo oo waqtigeedii ka horeysay uu ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Malla Zanaawi waqtiyo badan oo taariikhi ah uu kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ومها فرح جري محمد عيسى آدن قصر مدحتوية دولة إثيوبيا أديس أبابا إثيوبيا